iyadoo ay weli taagan tahay isfahamwaaga ka dhashay hanaanka fulinta habraaca doorashooyinka heer federaal ayna isku hayaan mucaaradka dowladda federaalka oo doonaya in tabashadooda la dhagaysto fiilla Soomaaliya oo aragtay inaysan door ku lahayn arrimahan mucaaradka madaxweynenimada u sharaxan iyo madaxda dowlad goboleedyada ee heshiiskii 17 Sebtembar saxiixay oo qaarkood gadaal ay kala xumaadeen qodobada ku jira heshiiska waxa aan maanta eegi doonaa saddex qodob oo ay tahay in ka hor 16 bishan ugu soo wajahan ee Janaayo heshiis rasmi ay ka gaaraan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo xubnaha kale ee lagu magacaabo saamilayda siyaasadeed ee dalka waqtigan xasaasiga macluumaadka aan helnay waxa uu daaha ka rogayaa in saddexdan qodob looga baahan yahay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu inay heshiis ka gaaraan ka hor 16 bishan ugu soo wajahan ee Janaayo sanadka cusub ee 2021 kuwaas oo haddii aan la gaarin halis gelin kara oo dib u dhac weyn ku yimaadana horseedi kara hanaanka doorashooyinka baarlamaaniga iyo kan madaxtooyada ee loo madlan yahay 50 maalmood kadib in laga hirgeliyo gudaha Soomaaliya qodobadan saddexda ah ayaa kala ah qodobka koowaad dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa laga doonayaa inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha guddiga doorashooyinka ee ay soo magacaabeen oo la tuhunsan yahay inay ku jiraan saraakiil amni shaqaale rayida iyo xubno si gaar ah aan dhexdhexaadnimadooda loo qaadan karin maadaama musharaxiinta qayb ka mid ah ay aragtidooda siyaasadeed taabacsan yihiin si caadiyan oo u xayeysiinayeen muddooyinkii u dambeeyey qodobkan marka laga hadlayo tusaalaha nool ee ay soo qaadanayaan dhinacyada mucaaradka qaarkood iyo wakiilada caalamiga waxaa ka mid ah in fiilla Soomaaliya Puntland Jubbaland iyo Galmudug ay soo dirsadeen xubno isugu jira shaqaalaha rayidka agaasimayaal madaxtooyo saraakiil amni xubno hanti dhowrka gobolada qaarkood ugu sareeya iyo saraakiil amni oo ku shaqo leh xagga ammaanka iyo taageerayaashooda xogtu waxay hoosta ka xariiqaysaa in madaxweyne Farmaajo qorsheynayay in ka soo laabashadiisa shirka Jabuuti uu ku amray ra'iisul wasaarihiisa inuu isbedel ku sameeyo 6 xubnood oo ka tirsan guddiyadii la shaaciyay kuwaas oo 3 ka mid ah ay ka soo jeedaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo 3 xubnood oo taabacsan madaxtooyada Soomaaliya mowduuca guddiyada iyo wax ka bedelkooda waxa hareer socda arrinta guddiga Somaliland oo ugu yaraan la doonayo in kuraasta siyaasiyiinta beelaha waqooyiga ee waaweyn la sameeyo ballanqaad inaan laga boobi doonin laakiin taas ayaa weli ah mid dhinacyada kala duwan aysan heshiis ku ahayn qodobka labaad ayaa ah inay socoto loolan ay madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo xukuumadda federaalkuba doonayaan in dib loogu laabto heshiiskii la eebiyay Sebtembar bartamaheedii baarlamaankuna meel mariyeen Oktoobar kaas oo ahaa in meelaha lagu qabanayo deegaan doorashooyinka laga dhigo 2 goobood heshiiskii habraaci ka farcamay iyo jadwalkii jaangoynaya in dhammaantoodna u muuqda inay gebi ka laalaadaan wuxuu dhigaya in dowlad goboleed kasta 2 goobood looga qabto doorashada xubnaha aqalka hoose ama 275 kursi saamiga ay ka helaan taasi waxay ahayd mid loo arkayay in loo dhaweynayo dadweynaha lagana dheereynayo musuqmaasuq iyo tartamayaasha qaarkood inay waayaan fursado ole ama ay hoolka ku galaan hadda waxa soo baxaya in qodobkan ay doonayaan dowlad goboleedyada qaarkood in wax ka bedel lagu sameeyo laguna soo koobo caasimadda oo kaliya si la mid ah sidii dhacday sanadkii 2016 waxaana dadka aaminsan ee ka tirsan madaxda go'aan kale ay sabab uga dhigayaan in waqtigu aad u soo dhawaaday tani waxaa si durugsan u iibinaya dhanka fiilla Soomaaliya oo doonaysa in madaxweynenimada doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo oo aan laga dimirin si waqtiga loogu koobana in doorashooyinka lagu celiyo caasimadaha dowlad goboleedyada in meelaha qaarkood aysan ammaankooda wada sugi karin dowlad goboleedyada tasiilaadka adeegyada amni ee ku baxayana ay u baahan yihiin malaayiin dollar ayadoo tusaale loo soo qaadanayo Baraawe oo ka tirsan koonfur galbeed koonfurta Gaalkacyo oo Galmudug ah Beledweyne oo Hirshabeelle ah iyo Garbihaarey oo Jubbaland dhammaantoodna caqabadaha ay ka siman yihiin
waa xagga ammaanka marka laga taga khilaafaadyada dowlad goboleedyada gudahooda ka oogan. qodobka saddexaad, arrinta gobolka Gedo sida doorashada loogu qabanayo walaac badan ayaa dul hoganaya, waxaana isku haya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland oo xiriirkoodu xumaatan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday sanadkii 2017 khilaaf u dhaxeeya golihii iskaashiga dowlad goboleedyada oo xilligaas ay nabad iyo nolol u arkaysay halis weyn oo siyaasadeed. tan iyo waqtigaas Axmed Madoobe iyo Fiila Soomaaliya dagaalkoodu waxa uu ahaa mid soo taagnaa, wax badanna la isla soo maray. xogahan helnay waxay cadeynayaan in dowladda federaalku in gobolkan laga saaray gacanteeda ay aad uga qanacsan tahay in 16 kursi ee ku qoran lagu soo doorto Kismaayo, taas oo ay wehelin doonaan shuruudo ku saabsan sida lagu heli doono warqadda ogolaanshaha tartanka iyo in guddi ka socda beesha caalamku ay doorashada saameyn xoogan ku yeeshaan. qodobadan waxaa daba jooga oo ay isna wakiilada caalamiga doonayaan in la qeexo sida warqadda dambi la'aanta ay ku heli karaan musharaxiinta, iyadoo cabsi laga qabo in madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo la dagaalamaya tartamayaasha ay caqabad ka dhigi doonaan hanaanka lagu helayo warqadan. taas waxay doonaysaa beesha caalamku in mar kale la cadeeyo, iyadoo weliba ugu yaraan la heli karo gacan ka madax bannaan loolanka siyaasadda oo hubinaysan dambi la'aanta xubnahan. sida ay cadeynayaan xogaha aan ka helayna ila ka tirsan gudaha madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kuwa amni iyo safaaradaha ku sugan gudaha Soomaaliyaba waxay isla qirayaan in madaxda Soomaalida ka hor marka laga soo laabto sanadka cusub fasaxiisa shaqooyinkana uu bilowdo looga fadhiyo in dhexdooda isqanciyaan oo ay gaaraan qaraar wada jira ka hor, haddii kale ay dhici karaan faragelin siyaasadeed oo ka timaada xagga bulshada caalamiga. dhammaan saddexda qodobo waxay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku u muuqdaan kuwa isfaham ka gaari kara, laakiin caqabadda ugu weyn ayaa noqon karta xubnaha gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo aan weli la magacaabin. taas ayay doonaysaa xukuumadda federaalku in la shaaciyo ka hor, kadibna lagu sameeyo isbeddel guud. tanaasul ka yimaada Axmed Madoobaha Jubbaland iyo Siciid Daniga Puntland ma badna rajada laga qabo waqtigan, waxayna u arkaan in saacaddu ay ku socoto Farmaajo iyo Fiila Soomaaliya ee dhankooda ay weli jaanis siyaasadeed leeyihiin.